qaraxan oo loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa ku qarxay agagaarka hotel Wehliye ee wadada Maka al-Mukarrama ee magaalada Muqdisho. qaraxan oo dhacay xilli galab ah oo ay wadooyinku saxmad ahaayeen goobo ganacsi u badnaa waxa ay ku yaaleen hareeraha wadada ay mashaqadani ka dhacday. dad rayid ah ayaa ku dhintay kuna dhaawacmay. goobta uu qaraxu ka dhacay waxa ka muuqday burbur baahsan, gaadiid badan oo wadada isticmaalayay halkaas ayay ku basbeeleen oo bajaajo u badnaa dadkii saarnaa dhiigooda uu ka muuqdo. kooxaha gurmadka degdega oo soo gaaray goobtan waxa ay daadgureeyeen dadkii ku waxyeeloobay qaraxa markii ay halkaas soo gaareen hay'adaha amniga dawladda Soomaaliya kadib. afayeenka wasaaradda amniga gudaha Cabdicasiis Cali Ibraahim Xildhibaan ayaa sharaxaya tirada dhimashada iyo dhaawaca ee uu qaraxaasi geystay. inta aan ilaa iyo hadda ognahay 14 ruux oo dad Soomaaliyeed ah oo ahaa dad aan wax dambi ah ka gelin dalka iyo diinta. waxaan rajaynayaa shacbiga Soomaaliyeed inay og yihiin inaan dagaal kula jirno maleeshiyada arxan laawayaasha ah ee dagaalka. waa u tacsiyadeynaynaa qoysaskii ehladii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen dadkii Soomaaliyeed. tirada dadka dhaawacmay ee sida ilaa iyo hadda aan ku gareynay waa 8 qof. isbitaalada magaalada Muqdisho ayaa la dhigay qaar ka mid ah dadkii ku waxyeeloobay qaraxan oo dhacay xilli qaybo ka mid ah wadooyinka Muqdisho ay ciidamada xasilintu ka wadaan howlgallo lagu bartilmaameedsanayo kooxaha lidiga ku ah amniga iyo argagixisada. Sugaal Macalin Maxamuud, telefishinka qaranka Soomaaliya. goobta qarax uu ka dhacay agagaarka hotel Wehliye magaalada Muqdisho.